maanta oo sabti ahayd kuna beegneed 15 bisha February waxaa hirgashay oo qabsoontay laguna guuleystay in la fuliyo isweydaarsiga maxaabiista ay kala haysteen dhinacyada Israa'iil iyo kooxaha wax iska cabinta ee Falastiin. Isweydaarsigan waxa uu noqonayaa kii lixaad ee qabsoomaynta lagu guda jiray xabad joojinta ay labada gees ku heshiiyeen bishii la soo dhaafay ee Janaayo, waxaana xorriyadooda ku helay askar ka tirsanaa ciidanka Israa'iil iyo dadkii rayidka ee reer Falastiin kuna xirnaa xabsiyada Israa'iil. arrinta hadalhaynta weyn ka dhalisay warbaahinta caalamka ayaa fariimo la yaab leh oo ay isdhaafsadeen kooxda Xamaas iyo Tel Aviv, taas oo la sumariyay maxaabiista ay isweydaarsanayeen. warbixinta waxaynu ku eegaynaa erayada Israa'iil ay ku soo qortay dhabarka maxaabiistii ay sii deynaysay ee reer Falastiin iyo weliba kuwii ay uga jawaabeen kooxda Xamaas oo noqday kuwo filan waa ku abuuray xukuumadda Netanyahu oo ilaa hadda la yaaban qaabka looga jawaabayo dhammaan ficiladeeda ku wajahan arrimaha ka taagan marinka Gaza iyo doonista dhinaca Xamaas ee reer Falastiin. As-Sunnah Islamic Online waxa uu ku bashaaraynayaa ardayda qurba joogta inay ka baran karaan Qur'aanka Kariimka, higaada, axaadiista, ducooyinka iyo barbaarinta ubadka hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. maxaabiista maanta la sii daayay. tirada maxaabiis ee maanta laga soo daayay xabsiyada ku yaala gudaha dhulka Israa'iil haysato ee Falastiiniinta waxay ahaayeen 369 maxbuus kuwaas oo ka soo kala jeeday Qudus, daanta galbeed iyo marinka Gaza. markii ugu horeysay waxay Israa'iil sii daysay qayb ka mid ah tirada dadkii ay ka afduubatay marinka Gaza, waxaana maanta xorriyadooda helay oo dib madax bannaani u qaatay 333 qof waa dadkii marinka laga afduubay kadib 7 Oktoobar weerarkii dhacay sanadkii 2023. waxaa maxaabiista ka duruuf duwan dhammaan dadkii reer Falastiin ee ka soo baxay xabsiyada Israa'iil ay maamusho. waa dad xorriyadooda dib u helay xilli dumiyay magaalada Gaza oo laga kaxeeyay iyadoo dhisan isla jeerkaana ay dadkii ay ku dhex nool yihiin. waxay ifku soo bixeen iyadoo duqeymo lagu dilay in badan oo ka mid ah ehelkoodii ay jeclaayeen, asxaabtoodii iyo dadka ay muddada dheer saaxiibka ku ahaayeen xaafadaha kala duwan ee marinka Gaza. waxay dhaayaha saari doonaan magaalo si walba loogu gundugtamay oo dadkii ay deegaan hadda u yihiin teendhooyin iyo guryo ku meel gaar oo hadda dhisteen. waxaa intaa u dheer inay maqli doonaan wararka maalinlaha aadka loo hadalhaye in la barakicinayo dadka marinka ku dhaqan, taasoo noqon doonta sheeko ku cusub maxaabiistan oo halkaasi ka maqnayd 15 bilood ee la soo dhaafay. geesta kale dadka maanta xorriyadooda ka helay dhinaca Israa'iil waxaa ku jira 29 qof oo ka mid ah dadkii laga taxaabay daanta galbeed iyo 7 qof oo ka soo jeeda magaalada barakaysan ee Qudus, taas oo ahayd ficilo kala duwan oo Israa'iil ay ka geysatay magaaladaas oo dadkaas ay ku daabushay. maxaabiis xasmida ay ku xukunayd oo iyana xorriyadooda helayaan. markasta oo Israa'iil ay soo daysay qayb ka mid ah maxaabiista tirabeelka ee ku jira xabsiyada ay maamusho, waxaa ka soo dhexbaxa oo lagu arkaa dad loogu talagalay inay halkaa ku qaataan inta noloshooda ka dhiman, gaar ahaanna dadka loo diro xukunada abidka u dhaadheer ee ah madaxaha ku furto. maanta wax xorriyadoodii helay oo dib noloshooda u bilaabay dad ay ku jiraan 3 qof oo walaala oo Israa'iil ayna ugu talagelin inay dib u arkaan iftiimka adduunyada ee laga qariyay, balse ku soo baxay heshiiska ay wada gaareen Xamaas iyo xukuumadda Netanyahu. 3 maxbuus ee walaalaha ayaa kala Ibrahim Ahmed Sahra, Muuse Ahmed iyo Khalil Ahmed. walaalaha waxay shakadooda u laabanaysaa sanadihii 2000 ee bilowgii qarnigii 11aad, xilligaasoo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen kooxda wax iska cabinta Israa'iil Qudus, oo ah koox doonaysa sidii gacanta loogu dhigi lahaa magaalada barakaysan ee Qudus. waxay ahayn 3 qof oo qoys dhan ka maqan, laga waayo wax war oo la xiriira xaalka ay ku sugan yihiin, xilliyada qaarna la soo wariyay inay dhinteen oo dunida ay ka tageen. dadka kale ee dib maanta xorriyadooda u helay waxaa ka mid ah uguna magac dheer Nair Salaam Ubayd oo sanadkii 2004 laga xiray dhinaca iyo magaalada Qudus kadib markii lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa garabka hubeysan ee Cusudin al-Qassam. maxbuuskan oo xabsi daayin lagu xukumay waxaa la warinayaa in loo geystay tacaddi aad u ballaaran, taasoo gaarsiisay inuu xilliyada qaar cuntada ka soomay, kana qayb noqday maxaabiis si weyn u qabsatay saxaafadda caalamka oo ku xirnaa xabsiyada Israa'iil. maalintii xilli xiray waxa uu joogay 3 bilood uun wiil jiray, kaasoo ay maanta dib u midoobayaan isagoo 20 sano jir ah, isla jeerkaana ay maanta ugu horeysay aragtida aabihii oo quus ka joogay maadaama lagu xukunay xabsi loogu talagalay inuu ku qaato inta noloshiisa ka dhiman oo ah xabsi daayin. dhammaan 7 qof ee u dhashay magaalada Qudus ee maanta xorriyadooda dib u helay waxay ahaayeen dad lagu xukumay xabsi aan ka soo laabasho lahayn, waxayse ku soo baxeen gorgortankii gumuca iyo baaruudda sababta u ahaayeen ee ay gashay kooxda Xamaas oo nafta dul dhigay wax walbana wurtay sidii dadkan loo sii deyn lahaa.
dibna loogu soo celin lahaa xorriyaddii ka maqnayd muddada aadka u dheer. Fariimaha la yaab kale ee maxaabiista dushooda ay isku dhaafsadeen Israa'iil iyo Xamaas. Fagaarayaasha la isku weydaarsanaya maxaabiista labada dhinac ay isdhaafsanayeen waxay maalmahan haayeen kuwa lagu gudbiyo fariimo iyo dhambaale si weyn dunida u soo jiitay. Hawshan oo markii hore kooxda Xamaas ay caan ku ahayd waxaa maanta ku soo biirtay Israa'iil oo soo bandhigtay dhambaal ay u dirtay dadka reer Falastiin. Israa'iil waxay dhammaan maxaabiista xabsiyeeda ka soo baxay u soo xirtay dhar uu midabkiisu caddaan yahay, kaasoo dhabarka lagaga xaray erey macnihiisu yahay ma iloobin mana cafin. ereygan oo muddo dheer ay dadka reer Falastiin u adeegsan jireen dhulkii xoogga laga qaatay waxa uu ahaa mid Israa'iil soo isticmaalayso inayna iloobi doonin oo ayna cafis ka gelin doonin weerarada xeryaheeda ee jaanta lagu mariyay ee duufaantii Aqsa iyo weliba jilibdhigii duulaan ee ay kala kulantay gulufkii ay ku ekaysay marinka Gaza 15 bilood ee la soo dhaafay. hadalhayn badan waxay ka dhalatay ereyada lagu soo daabacay dharkii loo soo xiray maxaabiistii muddada dheer xinayd. waxay dad badan oo reer Israa'iil laga soo warinayaan inay si weyn uga caroodeen iyagoo sheegay inay tahay mid muujinaysa jilicsanaanta iyo heerka ay gaartay awoodda ay ku faani jirtay Israa'iil oo maanta u muuqata mid gocanaysa jabka ay kala kulmeen duulaankii 15 bilood ee la soo dhaafay ay ka wadeen marinka Gaza. geesta kale kooxda wax iska caabinta oo ka jawaabaysa ereyada Israa'iil ku daabacday dharkii ay lahaystayaashu u xirnaayeen ayaa taas kaga falcelisay erey ay u dhibtay mid ka mid ah maxaabiistii askari ee ay maanta sii daysay, taas oo macnaheedu ahaa waqtigu waa dhammaanaya. tan waxay ka dhigan tahay in loo dardaar wariyay dhinaca Israa'iil iyadoo aan la samayn wax gocosho muujinaya iyo weliba wax la xiriira in dhankooda laga adkaaday ama laga golroonaaday. kooxda Xamaas dhammaan fariimaha ay ka gudbiso goobihii maxaabiista lagula wareegayay waxay ahaayeen kuwo ku qoran tabeelayaal la soo diyaariyay iyadoon wax qoraal lagu xaririn dhar iyo kabaha ay xirnaayeen maxaabiista Israa'iil ee lagu wareejiyay gudaha marinka Gaza, halka taa beddelkeeda ay Tel Aviv ku dhaqaaqday fal aad loo dhaleeceeyo oo ah inay dharta koor ka muuqda u soo gelisay maxaabiistii ay sii deynaysay. mowduuca ugu weyn oo lagaga doodaya gudaha Israa'iil waxa uu yahay qaabka ay dowladooda u gudbisay fariimaha oo loo arkay kuwa muujiyay heerka uu maraya tamarta Benjamin Netanyahu oo muddo dheer isku tilmaamay inuu haysto awood aad u badan oo aan si nabad looga adkaan karin ama aan muujin karin wax hooseyna oo ay dadkiisu qaadan kari waayeen. labada dhinac waxay hadda u muuqdaan inay ku kala guulaystaan dhinaca saxaafadda iyo indhaha bulshada maadaama kooxaha wax iska caabintu ay si heer sare u gudbiyeen dhambaaladii ay u direen dhinaca iyo Tel Aviv. dhacdo kale waxay ahayd in halkii lagu dilay Yaxya Sinwaar hogaamiyihii kooxda Xamaas ay maanta mar kale Xamaas ku wareejisay dhammaan lahaystayaasha ay sii daysay. tan waxaa lagu fasiray inay ka dhigan tahay inay sheegayso inay xooggan tahay oo aysan haba yaraatee baqdin iyo walwal qabin. dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka ayaa wax yar ka hor markii ay sii deyntu soo dhamaatay ku dhawaaqay inuu doonayo inuu maqlo dhawaaq ka yimaada dhinaca Netanyahu ee ku aadan mustaqbalka marinka Gaza oo uu la qaadanayo wixii Netanyahu uu soo saaro. Xamaas waxay sheegtay in Trump looga baahan yahay oo kaliya haddii uu doonayo in nolol maxaabiis lagu helo inuu gacmaha qabto Netanyahu kana baajiyo dagaal oo heshiis dhammaystiran la aado. haddiise taas aysan dhicin la aadi doono maxaabiista oo meydadkooda la heli doono iyo dagaalka oo saameyn xun ku yeelan doona dhaqaalaha Mareykanka iyo Israa'iil. American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi. waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelidda jaamacadaha Mareykanka. qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda.